قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الثناء لله الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. walaalayaal dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka salaamullahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh. meel kasta oo joogtiin ilaahay subxaana wa tacaala idinku xifdiyo ha idinku nabad yeelo. ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala. walaalayaal runtii ina soo gaadhsiiyey bishii ramadaan, kabacdina inoo suurtageliyay ilaahay subxaana wa tacaala in aan soonno, oon ducaysano, oon ilaahay barino, oon salaad tukanno ilaa laga soo gaadhayay bisha bartankeedii ramadaan oo ay tahay maanta maalintii 15aad bisha ramadaan. walaalayaal waxaan soo tilmaannay horay inaan u baahannahay inaan hadaf iyo ujeeddo aan yeelano, inaan samaysano goal iyo target aan ilaahay ugu dhawaanayna subxaana wa tacaala si nolosheenna aan wax uga bedelo bisha ramadaan, inay wax inoo ziyaadaan oo inoo ziyaado taqwo siduu ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka uu ku tilmaamay. kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun. inay inoo ziyaado taqwo, ilaahay ka cabsi subxaanahu wa tacaala, iyo rabbi inaan u dhowaano xaggiisa oo aan ku noolaano ilaahay subxaanahu wa tacaala sida uu jecel yahay inaan adduunyadan aan ku ahaano. waxaa markaa walaalayaal runtii aan isweydiinaynaa insha allahu tacaala, bal aan isu sheegaynaa haddii uu eebba idmo. waxayna soo dhaaftay 15 cisho. 15kii cisho ee soo tegay waxaa dib inaan u jalleecno ay tahay wixii aan qoranay, aan meel dhiganay, ee aan ku tashanay bisha in aan ku guulaysano inay noo suurtagaleen iyo in kale. taasi waa midda labaad. 15ka cisho ee soo socda ama 14ka cisho ee soo socda waxaan rabnaa insha allahu tacaala in aan idinla wadaagno maalinkii hal xadiid haddii la yidhaahdo, oo aan ka faa'iidaysano, oo aan ku eegno nolosheenna in ay nolosheennu wax iska bedeshay, ilaahayna subxaana wa tacaala aan ku raaligelin. xadiiska aan rabo maanta inaan isla fiirino waxa weeyaan xadiis uu nabigu sala allahu calayhi wasalam, imaam bukhaarina uu soo warinayo. waxaad nooga baratee runtii in aan kalgacaylka iyo xubbiga iyo jacaylka aan ka hadalno. waxaan rabaa xadiiskan marka inaan isdul taagno jacaylka rabbi subxaana wa tacaala. nebigu wuxuu leeyahay man axaba liqaa'a allahi axaba allahu liqaa'ah. qofka jeclaada inuu rabbi la kulmo subxaana wa tacaala, ilaahayna wuxuu jeclaadaa subxaanahu wa tacaala inuu la kulmo addoonkiisa jecel inuu rabbi la kulmo. walaalayaal waxaan isu dhiirigelinaynaa, isu boorinaynaa insha allahu tacaala inaan jeclaano ilaahay, inaan la kulanno. isweydii marka bal raqbada kuu haysa iyo dareenka iyo doonista iyo baahida kuu haysa rabbi inaad la kulanto intee bay la eg tahay. waxaad garan kartiin marka uu qof guursanayo ama maaragtay caruus uu guursanayo caruusadiisa inuu la kulmo siduu u jecel yahay. marka uu waalid iyo ilmo kala fogaaday ay isku imanayaan, ay isku soo noqonayaan, siday isu jecel yihiin inay isku arkaan, inay u kulmaan. qof kaa xidhnaay oo muddo kaa maqnaay oo kaa xabisnaa marka uu kuu soo baxo sideed u qaabishaa. waxaa isweydiin laha markaa rabbi subxaana wa tacaala ma jecel lahay walaalayaal inaan la kulanno? haddaan jecel lahay waa inaan isweydiino suurad caynkee ah iyo wakti caynkee ah iyo xayaato caynkee ah iyo qaab caynkee ah ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala inagula kulmi lahaa. maxaad jeclaan lahayd? adigoo sidee u eg? adigoo maxay ku jiraan? adoo maxay samaynaya ayaa jeclaan lahayd inuu rabbi kula kulmo ama aad rabbi la kulantid subxaana wa tacaala? walaalayaal waxaan rajaynayaa inuu qof kasta jecel yahay inuu rabbi la kulmo isaga oo rabbi raalli ka yahay. ilahay waxaan ka baryayaa ilahay qulubteena inuu jacaylkiisa ka buuxiyo. allahuma ina nas'aluka xubak wa xuba camali aladi yuqaribuna ila xubik. wajazakum allahu khayran wasalaamu allahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا
واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا